mahadsanid ilaah qof walba waxaan idin salaamay magaciisii rabbigeena alle Ciise Masiix. We are back in our Bible. waan ku soo laabanay daraasadayadii kitaabka. So we are in John chapter 1. Today we are starting with verses 15. sidaas darteed waxaan joognaa injiilka Yooxanaa. maanta waxaan ka bilaabaynaa aayadaha 6. John bore witness of him and he cried saying, Yooxanaa ayaa marag furay isaga wuxuuna qayliyey oo yidhi, This was he of whom I spoke. tani waa kii aan ka hadlay. He that comes after me is preferred before me, kan iga daba imaanaya waa iga horreeya, for he was before me. waayo hortay buu jiray. So here, John the Baptist is trying to show them that I'm not the one. sidaas darteed Yooxanaa baabtiisku wuxuu isku dayayaa inuu tuso inayaan ahayn kii la sugayay. When we go in reality, John the Baptist is older than Jesus in flesh. marka xaqiiqadu tahay Yooxanaa baabtiisku waa weynaa Ciise jid ahaan. So when he say he was before me, marka uu yidhi waa iga horreeya, is not speaking about Jesus in flesh, but is speaking about Jesus, the Word of God and the Spirit. isaga ma uusan ka hadlin Ciise jid ahaan, balse wuu ka hadlayaa Ciise ereyga ilaah iyo ruuxa. In verse 16, aayadaha la tibacaad. and of his fullness we have received grace for grace. iyo in buuxintiisa dhammaantaynu nimco ka nimco ayaan ka helnay. So in the Old Testament it was about that. sidaas darteed waayadii hore waxay ku saabsaneed sharciga, But the law is like a mirror. laakiin sharciga waa sida muraayad. We can see from the mirror that our face is dirty. waxaan ka arki karnaa muraayada in wejigeenu uu masakhsan yahay. Through the mirror we can see that we have dirty stains in our clothes or shirt. iyadoo aan maraayada ka arkayno in darkeenu uu masakhyo leeyahay ama in aanu nadiif ahayn. But the mirror cannot clean our face. laakiin muraayadu ma nadiifin karto wejigeena. So that's the law. sidaas ayaa sharcigu yahay. sidaas darteed waa nimco in aan lagu badbaado. Amen. So in verse 17, amiin. marka aayadaha 7. for the law was given by Moses, waayo sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse, but grace and truth came by Jesus Christ. laakiin nimcada iyo runta waxay ku timid Ciise Masiix. So Moses was given the mirror sidaas darteed Muuse waxaa loo siiyey muraayada, that people could see that they are sinful, si dadka ay u arkaan inay dambiisayaal yihiin, and also the requirement of what they were supposed to pay. iyo sidoo kale baahida waxa ay ahayd inay bixiyaan waxa laga rabay. They used to make sacrifices waxay u samayn jireen dabyado, because the Bible says, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. sababtoo ah kitaabka ayaa leh in la'aanta dhiigdaadinta aysan jirin kafis dambi. But the blood of animals could not make them righteous. laakiin dhiigga xayawaanka ma usan awoodin inuu u nadiifiyo, ma usan ka digin iyaga kuwa sax ah. God was passing their sin. He was passing over their sins to Christ. ilaahay wuu ka booday dembiyadoodii, wuu u gudbaayay dembiyadooda Ciise. So grace and truth came through Christ. sidaas darteed nimcada iyo runta waxay ku timid Ciise. We are saved by God's grace. waxaan lagu badbaaday nimcada ilaah, And through the word of Jesus, which are truth. iyo iyada ereyga Ciise oo ah runta. In verses 18, aayadaha 7. no one has seen God at any time. qofna ma u arag ilaah marna, The only begotten Son, kii kaliya ee wiilka ah, which is in the bosom of the Father. kuwaas oo ku jira nafta aabbaha gudaheeda. He has declared him. isaga ayaa inoo sheegay. So here the Bible is showing us the sovereignty of Jesus. sidaas darteed kitaabku wuxuu inaa tusayaa argoosiga Ciise. He is the word of God. He came from the heaven. isaga waa ereyga ilaah wuxuuna ka yimid samada. He was in the beginning with God. wuxuu ahaa bilowgii ilaah la joogay. So he came and entered into flesh. sidaas darteed wuu yimid oo jidka ayuu galay. Because we are people of flesh. sababtoo ah annagu waa dad jid leh. And a spirit cannot take a punishment for our sins. iyo ruuxdu
ma aysan qaadi karin ciqaabta dembiyadeenna. So he had to pass through the suffering that we suffer here on earth because the earth was cursed. Sidaas darteed waa inuu maro xanuunka aynu dunida ka soo marno. Sababtoo ah that through him our sins are forgiven. inaydaas awgeed dembiyadeenna waa la cafinayaa isaga awgiis. Our sins cannot be just forgiven by washing our bodies with water before prayer. dembiyadeennu ma aha in si fudud loo afin karo iyadoo la dhaqayo jidhkeena biyo ka hor salaada. Because sin is spiritual. Sababtoo ah dembigu waa ruuxi. Share with a friend this message La wadaag saaxiibkaaga fariintan so that the light of Jesus shall shine to si in iftiinka Ciise uu u iftiimiyo dhammaan.